بسم الله الرحمن الرحيم داوديال taariikhda caawa 11kii bishii saddexaad 2023 halkaan nagala socotaan waa barta YouTube-ka iyo TikTok ee Calas 24 Post daawadayaal meel walba joogtaan wararka caalamka kuwooda ugu weyn waxaa ka mid ah xogeyaha guud ee ururka NATO oo sheegay in loo baahan yahay xilligan in la garab istaago dowladda Ukraine uguna baaqay shir uu ka qaybgalayay oo ay ka soo qaybgaleen wasiirada midowga Yurub halkaas uu ka sheegay in loo baahan yahay xilligan taageero dheeraad in la siiyo dalka Ukraine madaxweynaha dowladda Ukraine oo sheegay magaalada Bakhmut haddii ay ka baxaan ciidankiisu inay Raashiyaanku ay hore u socon doonaan magaalo tuulo ayna ku xijin doonaan sidaa daraadeed magaaladan ma ka bixin doono ayuu sheegay Zelensky wasiirka difaaca ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov ayaa saxaafadda maanta u sheegay in shalay iyo maanta ay ka dileen ciidamada Ukrainiinta 350 askari oo soo hadalka u dhigay wasiirku sidoo kale warka waxaan ugu haynaa oo ku maqli doontaan magaalada Bakhmut oo ololeysa ninka ugu sarreeya ururka la yiraahdo caloosha shaqeysayaasha ee Raashiyaanka ee barefadka ee ciidamada u dagaalama dowladda Ruushka ee Wagner Group ayaa halkaa ka hadlay wuxuuna sheegay magaalada badanka inay gacanta ku hayaan wadadii u banaaneyd ciidamada Ukrainiintana ay duqeyn badan ay ku hayaan sidoo kale wararka waxaa ku maqli doontaan hub casri ah oo dagaalka ku soo biiray sida taangiyada iyo artillery iyo qoryo kale oo nooc sida BMK oo kale ah magacoodana aan soo gudbin doono daawadayaal meel baa joogtaan halka nagala socotaan waa Calas 24 Post warkii ofisan xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo kaydinta rasaasta iyo soo iibinta wadajirka ah ee dheeraadka ah si loo sii wado taageerada Ukraine waxa uu xusay in xulafada NATO ay siiyeen Ukraine taageero ku dhow 150 bilyan oo euro sanadkii la soo dhaafay taasoo 65 bilyan oo ka mid ah ay ahayd taageero military waxa uu intaa ku daray in iskaashiga NATO iyo EU ay sii wadaan inay muhiim u yihiin taageerada Ukraine iyo ilaalinta qiimka la wadaago daawadayaal waxaan hadda aan soo galnay magaalada Bakhmut waxaa ku socota sidaad u jeedaanba duqeyn aad u fara badan oo culus ciidamada Raashiyaanka qaybahooda kala duwan waxay isticmaalayaan hubka noociisa la yiraahdo qorigan TOS 1 waxaa ku xiran 24 dhuumood ayaa ku xiran dhuumahaas oo marba qaabkii loo ridayo maarta laba isku raacaya ama afar marna sideedada rabaan u dhacaya qaabka operatorka loo adeegsado ama ninka kabtanka ka BM-kan qorigan waa qori casri ah noociisa ugu dambeeyay oo hadda dagaalka ku soo biiray gobolka Donetsk ayuu maartay hadda dagaalku xoogan uu ka socdaa sidoo sheegayo sargaalka qorigan wada wuxuu leeyahay 5 kilomitir ayaan wax ka duqeynaynaa meeshii uu ku dhacay aagaasna kurtigiis waa ololeysa dab ayaa ka kacaya wax ka badbaadayna waa dhahay ciidamada difaaca ku jira sida dhufeysada adag ayuu maartay ka soo saaraya oo maartay laga saarin waayay andee dhufeysay adag qoteen halkaas uu ku burburinaya iyo hubkooda ayagaba sidoo kale kabtanka wada TOS 1 baa la yiraahdaa horta qorigan aad u jeedaan oo u eg tangiga lidka diyaaradaha kalena oo loo adeegsadaa xagga cirkana uu soo ridin karaa diyaaradaha artillery ahaan oo loo adeegsan karaa oo 5 kilomitir wax ka dilaa marka kabtanku wuxuu leeyahay qorigan wuxuu maartay Ukrainiintu ma haystaan ciidanka Ruushka aad buu maartay wax tar weyn ugu yeelay sida ilaa intuu dagaalku uu ka socday gobolka Donetsk dhinaca bari ee Ukraine sidoo kale daawadayaal dowladda Ruushka waxay soo bandhigtay hub kale oo culus oo maartay aad u fara badan oo ay ka mid yihiin qoriga la yiraahdo magaciisa T90 waa taangiga la yiraahdo magaciisa T90 oo casri ah
waxaa kale soo bandhigeen artilleriga sida taangiga maaragtay oo kale oo artillery ku xiran yahay, laakiin waa taangi markaa muuqaal ahaan aragtid, laakiinse waxaa ku xiran artillery. waa arrin mucjisa. qorigan qori haystaan reer galbeedku maaha. dagaal aad u xoogan ayaa socday wiigan oo faraha la iskaga gubtay gobolka bari magaalada Bakhmut oo hadda nin muuqata dhinaca waqooyiga iyo koonfurta iyo wadadii ka baxaysay hal wada u banaan ciidamada Ukrainiinta, wadadaas oo maaragtay si xun loo duqeynayo iyo ciidankii Ukrainiinta oo maaragtay ayagu difaaca jilbaha u dhigtay ilaa haddana aan si dhiibin magaaladan ka bixin. sidoo kale daawadayaal dagaalkan waxa la iskula haray male, hub nooc walba oo raashiyaanku haysteen meesha waa soo galay. taangiga kale oo aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah oo artilleriga waxaa la yidhaha magaciisa 152 mm Giantisinti S baa la yidhaha waa artillery. sidoo kale waxaan igu tusayaa muuqaal ahaan taangigaas la yidhaahdo T90ga oo asagoo dagaal ku jira iyo 152 mm Giantis S artillery. daawadayaal halkaan nagala socotaan waa barta YouTube-ka Calas 24 Posti. daawadayaasha waxaan ka raaligelinaynaa in muddaaba war maana soo dhigin xagga cilad farsamo awgeed. daawadayaal dagaalkan dowladaha reer galbeedka iyo khubarada kale waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in haddii magaaladan ay gacanta ku dhacdo madaxweynaha Ukraine oo maanta asna uu sheegay in raashiyaankiisa istaagin doonin magaalo to magaalo ay isu gudbin doonaan. sidaa daraaddeed waxaa hadda ciidamada Ukrainiinta loo keenay hub culus oo artillery laftigooda ka mid yihiin iyo taangiyadii Jarmalka ee Leopard 2 la oran jiray. dagaal xoogan ayaa socda. ururka NATO waxay ku baaqeen in maaragtay lacag fara badan iyo hub fara badan meesha lagu daabulo. wax waawaan oo ilaa hadda kasoo baxdana male. arrinkuna waa xun yahay. ciidamo fara badan ayaa maalin walba dhinta. dhinaca dowladda reer galbeedka iyo saxafiyiin u hadla waxay leeyihiin 10 askari oo raashiyaanka markay dhintaan hal askari oo waxaa dhintay Ukrainiin oo si ayagu hadal u dhigayaan, laakiinse boqolaal ayaa ka dhintay ciidanka Ukrainiinta maalin walba. sababta ah hubkan ay ujeedaan ayaa lagu garaacaya magaaladan 80,000 oo qof ay deganaayeen badankoodina shacabka ay ka carareen. daawadayaal arrinkan faraha ayuu kasii baxay. hadda waxaan nihayaa oo ila daawataan taangiyada casriga ee dagaalka kusoo biiray ee mucjisada ee T90 T95. waxaa kaloo ila daawataan qoriga artilleriga oo la yidhahdo magaciisa 152 mm Giantis S artillery. daawadayaal meel walba joogtaanba oo ku mahadsantihiin barnaamijka qaybihiina kala duwan bulshada si aad la socotaan asxaabtiina la wadaaga la sheergareeya. waxaa hadda nagu soo dhaweynayaa hubka casriga ee dowladda Ruushka ay soo bandhigtay ka mid yihiin taangiyada iyo artillery. Выстрел! Огонь, огонь! Выстрел!
bismillahi raxmaan raxiim daawadayaal dowladda raashiya sidoo kale waxay soo marigtay ciidankii oo lugeynaya ciidanka lugta ku jira waxay ay soo galeen Kirimana Forest ama dhulka hawdka loo yaqaano Kirimana Forest waxay isticmaalaan artillery-ga waxay leeyihiin dhinaca wadadii u banaaneed ciidanka Ukrainiinta ayay duqeynayaan waxay leeyihiin taangiyada iyo hubkooda iyo baabuurta konvoyga oo socda oo kolonyada ayay maaragtay artillery-gu oo 200 ilaa 300 oo mitir ayuu wax ka duqeynaya kabtankan qorigan artillery-ga hogaaminaya wuxuu leeyahay soo saxaafadda la hadlay uu sheegay in ciidamada Ukrainiinta wadada kaliya hadda u banaan ay ku soo qulqulayaan ama ay rabaan inay ka baxaan baba in ciidamadii Raashiyaanka ee qaybta artillery-ga ay dhulka hawdka Kirimana Forest la yiraahdo ay ka duqeynayaan halkaas ay ku gubeen baabuur aad u fara badan ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin ciidamada Ukrainiinta hubkii ugu dambeeyay oo nooca Raashiyaanka oo isticmaalayay ayuu hadda dagaalka soo geliyay bishan hadda lagu jiro iyo bishii la soo dhaafayba daawadayaal saa la socotaanba saraakiisha Ukrainiinta waxay sheegayaan in dagaalkan ay guulo waaweyn ka gaareen waxay leeyihiin oo kale khowrada reer galbeedku dowladda Raashiya waxay isticmaashay super hypersonic gantaalada guuxooda ka dheereeya oo 6 ka mid ay ku dhaceen dalka Ukraine oo meelaha ku dhacayna dhulka ay la go'een waxay leeyihiin gantaalkan wuxuu hadda u yahay digniinta ugu dambeysay dowladda Ukraine sarkaal sare oo war-saxaafadeed siiyay ama nuqul ka mid ah siiyay Al Jazeera maanta wuxuu sheegay oo ka tirsan sirdoonka dowladda Mareykanka reer galbeedka wuxuu yiri ciidanka ama dowladda Raashiya waxay adeegsan doonaan hubka sida baan wax u gumaada sidaa daraadeedna dagaalku halkaas ayuu ku dhamaan doonaa awal waxay oran jireen haddii Ukrainiinta ciidanka wadankaas loo adeegsado hubka sida baan wax u gumaada annaga dagaalka soo geli doona laakiin sarkaanka sare oo hadlay sirdoonka dowladda Mareykanka wuxuu sheegay hubka sida baan wax u gumaada in dowladda Raashiya ay adeegsan doonto bishan ama bisha soo socota sidaa daraadeedna dagaalku halkaa uu ku dhamaan doono daawadayaal dowladaha reer galbeedku waxa dhaqaalaha iyo waxuba waxay hayeenba dagaalka ayay ku soo gurayaan dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa Ukraine maaha waa dowladaha reer galbeedka midowga Yurub NATO iyo dowladda Mareykanka Canada Australia Ingiriiska ku jiro sidaa daraadeed dagaalkan waxaa laga yaabaa khubarada qaarkood ay sheegayaan in arrinka uu faraha uu ka baxo oo Mareykanka iyo NATO iyo Raashka ay halkaas isku gacan saaraan sidoo kale daawadayaal waxaan soo gudbin doonaa warbixin cajiib ah oo laga diyaariyay dagaalkan iyo xaaladda ay ku soo dambeyn doonto mustaqbalka gobolka uu ka socdo dagaalkan la yiraahdo Donetsk ee dhinaca bari ku yaala ee Ukraine ciidanka Raashiyaanku iyo xulafada la socota calaasoo shaqsiyaashu waxay gaareen guulo la taaban karo Ukrainiinta sarkaal u hadlay wuxuu sheegay maanta oo TV laga leeyahay dalka Hindiya wuxuu warbixinayay wuxuu sheegay in ay ciidamada Raashiyaanka rag dagaalamaya maxaabiis yihiin kuwaasoo si xun u dagaalamaya waxay arkaan la dilaya aan saraakiisha Ukrainiinta waxay leeyihiin ciidankan maxaabiista waa ciidan aan naxayn oo aan gabanayn xabadana aan ka baqayn sidaa daraadeed guulaha Raashiyaanka la taaban karo waxa uu keenay waa ciidamadan maxaabiista oo dambiyada kala duwan ka galay dalka Raashiya warkan ku xiga waxa kala socota caalamka